وهاجاك سكسون قدنا كسندا وذا اللي واحد نقرأ سعوتان تلفزيون كإستيان برامج كان هو كان كوجرنا هاتن وحاسيتو سانو قد بينا قيبتني حالة الدلك وقيب أنا وبرامج كان كوجرنا نكفر قينو الرميه يقدم بيك تاجنا الدلك ما أنسى أنا بدنا برامج كان كفر قين دونا برامج كان وحاسيتو سين لسه عسين دونا وانيجا وعبد النور علي الحاجي استوديو وحبرامج كمرتيجوا مشمو أحمد قلوش إم بي لقصة دورتي وجير ويست countiga wajeeraya barnaamijka marti waa arrimo badan ayaan falanqeyn doonaa ay ka taagan dalka iyo arrimihii ugu dambeeyay soo kale ka taagan countiga wajeer iyo soo kale arrimaha quseeyo meesha asaga laga soo doortay wajeer western waan eegi doonaa marka waxaan ku leeyahay ha ka fogaanin waraysigan waxaa soo kale si live aad ugula socon kartaan boggan ku leenahay Facebook STN Somali TV oo si live aad ugula socon kartaan halkaas aad ugu soo qori kartaan wixii su'aal fikir iyo ra'yi ku aadan waraysigeena maanta mashmo ku soo dhawow waraysigeena maanta kuna soo dhawow studio STN ما تنتهي عبد النور وما تنتهي intaan bilaabin waxa arin yar oo ma aragtay arin yar ma aha arin culus oo ka dhacday Wajeer West shalay ayaan cambaareynayaa dil fool xun oo ma aragtay dad oo xoolo iskala jiro oo ma aragtay aan dib geysanin loo geystay oo ka socdo ma aragtay waqti dheer ka socday in kasta oo anaga si kastaba aan maslaxa ka xignay annaga iyo siilo dhaxdayna ama annaga iyo siilo north dhaxdayna marka waxa lagu dilay meel loo ku tuli yiraahdaan in lagu dilay nin kalena lagu dhaawacay oo iskala dahay dad xoolo iskala jira oo ma aragtay wax dib hoy geysteen ay jirin waqtiga kan oo hadda awaarta la joogo oo ma aragtay xaaladda ay kulushahay in ma aragtay dadka ummadda muslimiinta ay isku duusho oo wax sabab laana isku disho oo aragtay waa shay aan zaid ugu xunay zaid ugu cambaaraynayna hasi ahaatee dadka waliba dibka asu imaaday oo ma aragtay anagu meesha laga soo doortay waxaan farayaa inay ma aragtay culays xigsadaan oo wax dib oo ma aragtay argudasho ay geysanin insha Allah annagana dawladda waan la hadalnay subaxan ninka booliska weyn la jiray kulli arrimo oo dawlad xageeda waan qalqaalinaynaa marka in ay dibkaas ay dib kale ku dirinaan faraya insha Allah mashmo intaan arrimaha sii guda galin arintan hadiyaan wax ka weydiyo dhibaatooyinkan aad bay u soo noqdeen waxaan xasuustaa sanadkan soo dhaafnay shir badan aad Nairobi ku qabateen aad leeyahateen madaxda Isiolo Allah naxariisata Muse Ibrahim asagana war xasuustaa shir uu leeyahay odayaasha kale ka soo jeeda dhanka Isiolo marka arrimahan maxaa keenay hadii jeernay soo noqdaan waa la fariista waa la hadlaa waa la cambaariya laakiin dhibku wali uu soo noqonaya marka dhibkan maxaa loo dhameyn leedahay والله هرتا أنا هدانا هني Wajeer West أرنتان سد رنت أنا جزء هاد إدبتي محيالي ماشي حد اللي سكوت لي هاي Wajeer West دت كدبك جيسنا هنا ودت استنكيمات هاسي حتى نقول كوالس رح مرايا أو مر بدن بداقة مرا أو والس لجورايا دت كوا حول نقشة لكن أرنتان أرن ما أركتي حد أنا واحد كسبب كرم حيرة قف جيل لجر أو قول اسكوت ninka inta xabad u qaato ku dhufto meel uu joogo ha jooge arin aas meel ku sabab karta ma marka arintan waa arin iska fool xun oo jaahilnimo iyo ma aragtay kulli waxa maskax wareersan ay keentay runtii hadda tulooyinkii iyo dadkii dhulka koro joogina dhib ka jira maxay yeelay dhulka darooga ka badatay dad aan ma aragtay hadal maqleynina ka batay ما أردت إسكوريس كقبتي حتى قبيل حتى كم يديك مرك إن شاء الله وإحنا نصل قارنا عن إسكو دينا إن أزدل دم بكي إما هذا مشان ومعنا رانا ما أردت مرهم قرتي عاد بدو ما استمع شو عن سيقود قلنا أريمها كلا إساكي ميسك نصارن ودن كان عاد لقى هذا اليوم شلي وربحنا يا كصوب حد يقول دقة دورشين كذلك IBC ويصير شيء ذين إن قفك مشرحة كرسي وهو سي MC إلا مضحينه وإنه حيس الشهادة الجريجة أرنتان هذا لين فربنا إيدا لسي دد بدن ويسودوين أديجا ما دام حلمان أتحي كو أرنتان سوى ركتا إن أي قصب نقدنا أنتو إن قفك وحيس الشهادة الجريجة ورتا وشرعي شرعي وبرلمان كمريوري وبرلمان كحرقو مريواية إن ما أردتي وحي دورشو سو استاغن باي ديجري أي قوان مركا كينيا أنا وحكبتي مسوق ماسوق صح حتى ديجري وراقيه السوق اللوكال إبسنا مركا إن ديجري هبال أو ما أردت دتك لسكو هبال ما أردت اللي هيستوفى عندها إن كستو أو ما أردت عقلية يمسك حدا قفك أن لوسو كوبي كرين جامعة سنو آخر استكليح لكن قف ماشي جو وحيد هاي آخرين كرا وفهم كرا إن لسو دورتن وافع عندها مركا وحي شرعي إن سدا شرعي ويهين لو راح وافع عندها إن وحافع عن أي مركا تي أيده هاد أي هباليان
oo dadka digriga beenta ah qaba oo maaragtay waraaqaha suuqa kasoo istaagay ay haddana aan meesha maaragtay ay tartan ku galin sifa wadanka maaragtay si xaalad oo nidaam ah ay ugu jirta laakiin waa sharci safarta hore 2017 waxay dhaheen baashan waxay bilaabanay electionka 2022 hadda waqtiga baa la gaaray marka waa fiicanta inkastoo maaragtay cilmiga lagu dhigay aqliga kaasha la yiri ay taal oo nin walba maskaxdiisa ay heybadu ilaahay si ay tahay laakiin waa sharci in la maray ay tahay mashmo dhanka gobolka waqooyi bari markaan fiirno wajeer Garis iyo Mandera waxaa jira wax la yiraahdo negotiated democracy doorka odayaasha inay soo xulaan qofka musharaxa mararka qaarna odayaasha naftooda waxaa lagu dhaliilaa qofka ay soo qaadayaan inuu yahay qof aan san aqoonin waxyaabaha sharciga iyo arrimaha dhanka sharci dejinta dhanka baarlamaanka marka rayahan adiga muu malaynaysaa in dhanka waqooyi bari markaan fiirno arrintan soo xulashada odayaasha ay soo xulayaan qofka musharaxa iyadoon la eegaynin qofka inuu wax qaban karo inay saameyn ay ku yeelan karto qofku markuu tago baarlamaanka inuu matalo dadka ee halkaas loo geedanayo horta negotiated democracy-ga muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay qabiil sax qoys reer Garis cidda degta inay fadhiistaan nin reer Wajeer ah soo maqalay so negotiated democracy-ga waxaad u moodaa inaad ku dhisan yahay anaga qoyskayna aan tashana ama baarlamaan ha ahaado ama governor ha ahaado qof anagana hogaamiyo oo dadka kale u geyna aan tagno so taa markaa fiiriso oo yacni arrintan too much qabiilka as fiiriso dhib ayaa ku jiro laakiin odayaalku waxyaalo badan ay fiiriyaan waxay fiiriyaan maaragtay hadda arrinta aan ka hadlahaya oo dagaalka iyo dilka dhacay arrin MP maaha inkastoo MP-ga inuu dadkiisa u hadlo saanado waa arrin security markaan yaa maaragtay dadka kale la hadli karo oo dadka maaragtay wixii dhib oo soo gaarso arrimo badan oo dhaqan ah oo madaxdii aan looga maarminayo odayaalka fiirinaya marka sidii loo malaynayo maaha haddii ayaga meesha laga bixiyo waxaa dhacaya in la wada tartamo markii la wada tartamana hadda Kenya ninka MP-ga ah lama weydiiyo statement uu baarlamaanka keena laakiin nin MP oo Kenya dhulka kale uu la weydiinayo habla meeshan ka dibtay reer habla la fadhiisana adii meeting qalqaale ada saan yeel mala ta Soomaali iyo maarta xol dhaqshada oo ay goota marka arrimo badan oo hadda dadkan kala wadanka kale aan haysaninaya meesha haysta marka afsuuxilkan wuxuu dhahaa meel ay odayaal joogaan arrin kama halaawo marka in aan Soomaali odayaalkeeda iyo maaragtay dhaqankooda aan dhulka maaragtay qalin ku tirmo ma u baahnin maana malaynayo marka heybad baa ku jirto heybada ku jirta karti aad baad u maasantahay arrimaha kale mashmo aad wadanka laga hadlayo arrimaha ku saabsan dhanka maxkamadda dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu sidoo kale ansixiyay magacada kudwaada 34 garsoore lixna uu ka tagay arrintaasi hadaleyn fara badan ay dhalisay oo xitaa ka hadleen labada ka horeysay Martha Koome Mutunga iyo soo kale Maraga iyo aad u dhalileen in executive ama qaybta madaxweynaha inuu ka gaabiyay inuu ansixiyay magacadan madaxweynaha wuxuu leeyahay sirdoon ayaa haysta oo dadkan laga hayaa oo taasi awgeed ayaan u ansixin leeyahay marka arrimaha tan socda dhanka maxkamadda iyo hadaleynta ka soo baxaysa qaybta executive-ka mislaadaha inay saameyn ku yeelan doonto madax banaanida maxkamadda dansi eegna horta nin hadduu dhaqaale laga haysto madax banaanimadiisa waa iska yartay maxkamadda wadanka in ay madax banaanaato oo ay si cadaalad ah wax ku xukunto oo maaragtay ayaan ninba as jiidanin zaad ay u fiican tahay sax waa ogtahay hadda wadanka dhaqaalihii in maaragtay maxkamadaha laga yareeyay waa farajka maaragtay biyaha in markaas in yar saa ugu soo dhaca falkada la galay sifa ayagoo in lagu cadaadiyo loogu tiragalay xukuumadda ay gaaraan waxaan aaminsanahay arrinta sirdoonka sax sirdoonka markay Judicial Service Commission ay interview qaadayaan sax intay magacyaha u gudbinin madaxweynaha sirdoonka ay u diraan sifa sirdoonka uu report ugu keeno sax qaf report laga keeno sirdoonka ka keeno Judicial Service ma gudbiyaan marka waa arrin asmooda in ma aragtay gadaal dambe ay ka dhalatay oo laga fikiray mid kale madaxweynaha ninkii Chief Justice-ka hore wuxuu yiri listiga dad marka hore ku jiray hadda laga bixi marka waxyaalo noocan ay imaadaan credibility-ga ama ma aragtay confidence-ka waxa dhimanaya process-ka marka ana waxa ila ahaan lahayd madaxweynaha inuu dadka wada dhan ansixiya la dhaariya nidaamka maxay ninka wili waa judge sax high court judge is a judge
wax iska celisay waa appeal court appealka intaas imaadeen waa inaad high court ka soo marta marka haddaad high court-kiiba ka qaadin kaasna maxaa samaysay waay marka in uu magacyaha wada gudbiyo laakiin nidaamkii shaqada looga bixin lahay uu bilaabo wixii sirdoonka iyo evidence-ka judicial service commission u keena ay ka fariistaan nidaamkii markaan qofka asaga shaqada loogu saari lahay laakiin hadda nidaamkii ma socdo qofkii shaqa ku jiraa waxaasna tiri siraan ka haya sirta waa sir adag lix ku qarso gartay marka arrimahaas markaan kasii gudubno balaan fiirina waxyaabaha kale saaka wargeysadana aada u hadleen waa sida wargeyska staa lagu soo qoray waa hadal laga soo xigtay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta wuxuu leeyahay mid kamid ah siyaasiyiinta ku jiro istaga mucaaradka ee NASA ayaan taageeri doona leeyahay doorashada soo socotay 2022 waxaana kasii horeysay hadal dhawaan kasoo yeeray Raila Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka ay sheegeen inay wada shaqeyn doonaan ayna dib u soo celin doonaan istaga la yiraahdo NASA waxaan la soconaa in handshake kadib waxyaalo badan ay qabsoomeen oo la sameeyay waxa la yiraahdo One Kenya Alliance marka arrimahan baladan si fiican iyadoo ay sal ku hayaan siyaasadda 2022 maxaa ku muuqda maxaan u maleynaysaa inay isbedeli doonaan inta la gaarin 2022 dan siyaasada horta siyaasad markay imaado isbahaysi fara badan ay imaadaan madaxweynahana xaq uu leeyahay inuu qofku rabo gacan siiyo si uu arko dadkana xaq ay u leeyihiin qofkay rabaan inay doortaan marka waxyaalo badan baa isbedeli doona nidaamka siyaasadda aaminsanahay ayaga naftinkooda horta NASA Alliance-ka mis haystaan waxay yiri markaas aragtay Kalonzo iyo Raila markay dhan ka hadleen maalinta dambe Mudavadi wuxuu dhahay NASA waa dhimatay ma wajirta marka waxaan arkaynaa in uu hadda siyaasadda iyo isbahaysiga nationalku bilaabanayo say isu kala maarad soo kala baxan isay iskugu midoobaan dhanka iskugu tagaan arkaynaa yaa taagan ogaanayna marka laakiin madaxweynaha ana uma arka in ma aragti nin la cadaadin karo oo ninba ma dhisi kartid leeyahay waxaan u fiican uu ninku dhisayo inuu asaga iyo wixii influence uu leeyahay isku dhisa kii kalena markaan si xaq ah loo wada tartamo oo un waxa ma aragtay doorashada dagaalka keena oo isku dhaca waxa waaye in ay dad group ama team kamid ay u arkaan inay baasha xaq u dhicin xaqiba hadii laga shaqeeyo oo ninkii shacabka ay u codeeyaan u meel mar waxa kala dib uma arka laakiin madaxweynaha xaq uu leeyahay inuu hadda maanta ana uu yidhaha axmaq lashan madaxweynuhu dhisa haddaan arka inaan ma aragtay aan kursiga ii muuqdin hataa asaga dhis sida meeshan wax igama muuqdaan waa mahadsanta raalli hawaan leeyahay haddii kale oo intaan taagan aan wax inay ii muuqdaan aan arkana dadka dhisaayo oo weliba ma aragtay wadanka hogaamiyaha ka uu kamid yahay waa maarto wax isoo siyaaday noqonaysa okay mashmuuc markaa si fin isbahaysi fara badan aad jiro haddana siyaasiyiintu waxaad moodaa inay iskala qaybiyeen dadka qaar waxay isu bixinayaan taageeraan madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo Raila Odinga qaarna waxay soo kale ku jirsan yihiin dhanka iyo madaxweyne ku-xigeenka adiga dhankeed ku jirta mararka qaar waxaa maqlay in lagu xantay inaad ku jirto kooxda madaxweyne ku-xigeenka ee Tanga bal maanta noo sheeg adiga kooxdaas ku jirto iyo sababtaad kooxdaas ugu beertay bal dad noo sheegta aniga hadda arrimaha Northeastern iyo xaaladeeda waa kulli mashquulkooda waa fara badan yahay dadkeena waxa ay MP ka sugaan ama ay ka filaan iyo waxa ay Kenyaanka kale MP ka filaan waa kala dheeri waana ku sheegay hadda horta ka hadlay waqtigii oo isbahaysidka ila kala baxay oo nidaam labada jid la qaaday jidka cad iyo ma aragtay waxaas iyo danta anaga ka shaqeynay waayo aad waa ogtahay arrimo badan oo Northeastern ay leeyihiin halaaway waxa kamid ah census-ka arinta hadda aan zaid xanuunjiso waxa waaye constituency-ga aan leega soo doortay census-ka number ku ahay nuskeeda laga dhig Somalis arrimihii lacagta county-yaalka adeeysi waa ogtahay ma aragtay dhibka Northeastern ka haystay kuraasta cusub oo hadda hadii BBI-dan ay la marin lahay ama ay marta waxa Northeastern haysto waa ogtahay marka aniga waxaan doonayaa reer Northeastern in aan iska dhaafna wixii anaga aan habeenka samaysan lahayn iyo waxaan dhaartay dadka kale la samaysanayna aan kala qaadno qoyskii waxaan aan iska dhaafno madaxda Northeastern aan ka fadhiisana dantii Northeastern markaan isku raacno Northeastern danteeda waatan ayaan isku raacna dantii ayada hadiya noo fulina aan gorgortan ku galno waayo hadda Kenya qabiil ay iska noqotay qabiilada waaweynay ayaa isku xiranaya oo ayaga dantoodii hadda shalay Kamba leaders la jireen madaxweynaha waxyaalaha ay kala jireen waxa waaye war horumarka dhulka annaga iyo
maaragtay projectska iyo jidadka iyo dantii ayaan rabnaa waa sidaa taariikh 28 iyo taariikh 29 bishaan u dhahay waxaan kusoo wareegaa dhulka ayaga u kambani sax marka dantii ay ka shaqaynayaan marka dantoodii meesha ninka ay dhisayso u geynaysa marka anigu in nin aan baag u wada ma laha northeastern waa adag tahay runtii in ma aragtay hadda nidaamka aan ka sheekaynahayna lagu wada shaqaysta laakiin ma aragtay ninka madaxda ayad quraan waa yacni dadka ma hagaagaan ilaa ay madaxdooda hagaagto marka in madaxdii horta aan isu imaano oon isku dayna in wixii dan ah oo northeastern leedahay aan miiska saarno danta ayada ahayd yaan meel marin karnaana aan ku doorano annaga markaan hoos maaragtay raayraaydan iyo qabiilkaan aan u tartanna laakiin dantaas guud hoosteeda aan ku tartanna inay saa ila tahan umalayna okay waa saa sheegtay northeastern aad bay u adag tahay in dadkii lasu keeno hadda waxaa muuqataa dad qaar oo dhanka Raila iyo soo kale madaxweynaha ku jiro qaar waxay ku jiraan dhanka iyo William Ruto marka saa sheegtana siyaasiyiinta gobolada kale ay isu imaanayaan waxay leeyihiin maxaa dan u ah marka anaka maxaa naga hor istaagan dadka gobolka waqooyi bari inaan isu imaadno oo haladan aan ka tashano in fact mid kamid ah siyaasiyiinta oo ayaa weydiiyay maana wuxuu yahay gobolada kale waxay leeyihiin dad afayana marka maxay ku dhacay oo idinka inuu qof afayana inaan samaysan waqooyi bari in uu hadlo arrimahaas marka maxaa keenay sideen lagu sixi karaa daanayna walaarta arrimahan waa arrimo nasiib darro ah marka as imaada baarlamaanka ama national limelight ka as imaado arrimahan kaale ka shaqeey ay ku gashay oo dantii lagu soo doorto iyo marka aad banaanka joogto laba qof kala tahay marka banaanka joogto arrimaha yar iska fikiriyo annaga iyo qoyskan annaga isaan hada iska fikiri marka meeshaan imaado oo wixii wadanka lagu kala qaybsanayo in nidaamka asiyaas aragtana hadee waxa murug aan maaragtay marka hore ku haynina ku qabanay madaxdan as arkayso oo nin banaan isku xirahay waxa uu leeyahay qoyska annaga hadda adaan ku soo dooranay adaan ku soo bixinay adaasaana adaa qoyskayna MP ka ah reer hebel shalay haysteen intaan annaga noo qabo inta annaga noo soo reey tii marka waxay dhuminay in dantii guud isku imaado tartanka hoose oo qoysnimada la iskugu hayaa la isku imaada national leadership marka waxa waaye Axmed Qolosh haduu Cabdinuur la jira aan Axmed Qolosh la tartamay Cabdinuur meel eegama banaanay cali oo halka jooga aan la qabsado marka dantii waa dhimatay waxa dhimatay ninkan waa tartamayna waa inaan kala meel ku jirno hadda xisbiyaal ay dad sameeyaan xisbiyaalka coalition ay sameystaan oo isu yimaadaan northeastern hadda xisbiga hatta qabiil uu noqday haddaan laba xisbi noqon ama saddex xisbi aan samaysana laakiin xisbiyaalka aan heshiis galno oo aniga ninka ila tartamaya coalition-ka aan isku jirno laakiin laba xisbi oo kala aan ku tartanno coalition-ka korna iska mid ah wax baa hagaagay maxay yeelay danta guudo kor marka isku mid aan ka ahaynaa marka wallahi wax kala geeya madaxda northeastern waxa waaya tartankii buulada ama Garissa ama Mandera la joogo tulada la joogo ayaa la imaadaya national ama baarlamaanka waxa meel loogu socon laayahayna wata marka su'aashan ku weydiiyay adiga meesha ka tirsan tahay ma tanga ku jirtaa ma team handshake ku jirtaa ma dhaxdhaxaada ku jirtaa inta ka tirsan tahay wallahi anagoo hadda 4 ama 5 ah waxaan isdhahnay hadii nin walba uu ordo waana intaan ku jiro la dhahaa la kala maaragtay qof degan oo maaragtay waxaan saana loo baahan yahay marka hadda waxaan wadnaa in aan isku dayno in horta dadka hadda baarlamaanka ku jiro aan isu keenno oon sameeyna xisbiyaal iyo arrin aan sameeyno oo nidaam la iskugu imaadi karo oo northeastern ku shaqeyn karaan dadka qaar marka la hadasho waxay ku leeyihiin waxaas waa hadii sawa hatta yaani inay kula istaagaan markaan laakiin waa inay bilaabato oo dadka qaar ay diidaan dadka qaar ay ka raacaan marka hadda waxaan wadnaa in shalay waxa imaaday maan hore weekend soo dhaafay waxa fadhiday Rift Valley waxay leeyihiin anaga ha Ruto aan dhisayna sax waay laakiin Ruto aan dhisnay danta anaga inaan u geyno kula gorgortano danta anaga waatan aan dhaxlo asagan Rift Valley oo ka imaad marka dantii northeastern yaa ku gorgortamaya haddana aniga Ruto u sacabtamo ku kala Raila u sacabtamo ku kala San u sacabtamo marka anaga hadda waxaan isku diyahaynaa in aan intii la doortay hadda inaan isu keeni karno aan ku dayno as much as possible oo markaan meesha isla marno laakiin ay meesha aan maraynana meel oo aan danta u sahmayna ay noqoto soo ilaa hadda adiga ma cadeyn kartid meesha ku jirta ana hadda dantayda ay wado waa aan maaragtay wajeer aan wax u rabo wajeer west
xafiiskan ka raban tagaa MP aan nahay haddii oo ma aragtay dadka arrin muslimiinta ay jirto waxyaalo oo damiirkaygan uu iska diido waa jirta oo ma aragtay tan aniga ma tagay aan leeyahay marka laakiin waxaan aaminsanahay markii hal ordo la yiraahdo intay danta ku jirta waan aadi doonaa laakiin ka hor inaan dad isu keenno isku dayno اوكي aad baad u mahadsantahay mashmuul wali waxaad nagala socotaan telefishinka STN barnaamijkeena hoggaankan ku jirnaa mashmuul Axmed Qolosh MP-ga Wajeer West ee barnaamijka martinaga arrimo badan la falanqeynaya mashmuul aan ka soo laaban arrimaha wadanka taagana ku noqon dhanka gobolka ee qaasaan Wajeer markaad fiirisa bilooyinka ugu dambeeyay arrimo badan ayaa aad ugu taagnaa wadankan Wajeer waxaad moodaa in aad loo hadalhayay sabab la xiriir arrintii ay ku dhaqaaqeen golaha wakiilada ama MCS-ka inay barasaabkii hore Wajeer ambassador Maxamed Abdi Maxamuud xilka ka qaadan arrintu waxay soo aaday sanadku ay ku raaceen go'aankaasi waxaa lagu gudagalay xafladda dhaarinta barasaabka ee cusub Axmed Cali Mukhtar marka kadib mashquul fara badan dhacay iyo contingent iyo waxyaalo badan dhacay marka qofka maanta Wajeer aan ka imaadin oo jooga Nairobi meel kale wuxuu ku warsan yahay Wajeer yaa governor ka adiga ayaa ku weydiin su'aashaasi Wajeer maanta yaa governor ka hadda noo sheegta inta arrimo kale aan gudagalay والله فرتو ننكي إنا سأسجى وريرة ربا ننتو سنكر ملا أنجا نظام كهذا مركز ويديسي جامعة الدجريجة ضد كلا دورنا إلى جربا جوابا كاسي عم كير وحنا وشرعي شرعي كينيا وحقوقها يا جافنا هدو أحرم قار كل دقائق سدايش قدر الله بحنك sida shaqada looga bixin karo waxa waaye inay county assembly-ga soo mariyaan inay senate-ka mariyaan in ninkii dhaxli karana ninkii dibitigiisa uu yahay inkaas la dhaariyo marka ana hadda wareer Wajeerka jirmooy sharciya la mari maxkamadna haday go'aan bixisa waa in la xishmeeyo oo dhaxda Axmed Qolosh ma ahna MP-ga Wajeer West Abdi Nuur ah maxkamadan hadda ana go'aan noocaas ah kulli maxkamad waa la joogo hadda ka soo baxay ma arkay marka ana hadda waan wada hadlaynaa صح laakiin adna kursiga ku fadhida adna kursiga ku fadhiya marka kursiga Wajeer county waa mid haddana waxaan aaminsanahay nin baa loo dhaari صح haddii maxkamadii ay go'aan bixiso oo kii shalay loo dhaari ku aan ahayn ay siisay waan arkayna laakiin hadda saan ognahay county assembly-ga waxay sameeyeen impeachment sanadka ku raacay maxkamadan ninka dhaarisay ninka kalena ma shay jirto marka anaga kama doonayna yani nidaam in la dhaho Wajeer ya governor ka xafiiska governor kii uu tagta governor ka marka Allah xafiiska tagta doorasho Wajeer governor okay wanta xafiiska governor Nairobi aan tagay waan la kulmay governor Axmed Cali Mukhtar laakiin dadka Wajeer way wareereen waayo haddii uu hadlo Axmed Cali Mukhtar barasaabka uu hadlo wuxuu leeyahay aniga bari xafiis ku antay ninkan wuxuu leeyahay aniga yaa meesha jooga idinka xildhibaanin dadkiin lixda xildhibaan ee laga soo doortay lixda deegaan baarlamaaneed shir aan Nairobi ku qabateen xaddan waxa taageeraysiin Axmed Cali Mukhtar sababta uu taageeraysiina waa inuu u adeego dadweynaha reer Wajeer marka waxa la wareer ma laha meesha wareer aan ogahay ma laha anaga lixda MP maxaa meel aan ka soo galnay impeachment process ma laha oo anaga MCS na malihin senators na malihin صح Wajeer hal senator oo la soo doortay qabtaan marka aan press conference aan bixinayn senator-na lama joogin anaga waxaan u diidanahay Wajeer wareersan anaga waxaan leenahay Wajeer waxay soo martay si sharci ah arrinta si sharci ah ku soo dhamaatay sidii sharciga ahayd aan ma aragtay aan ku dhaqano aan ku socono marka maxkamad inay socotona waa jirta ayo moogtay wixii jira hadda been laga sheegay oo laga faacay maxkamad inay socoto waa jirta ma weekana ama week dambe aan ma ogiyaa ma aragtay preliminary ma aragtay orders la bixinaan u maleynaa maxkamadana wixii ku sheegtay in lagu dhaqdo amniga iyo nabadgelyada iyo dhaqanka wadanka ku jira صح laakiin hadda waxay soo sheegtay malaha marka aniga waxaan aaminsanahay in ninkii hadda governor ku jiro oo loo dhaaray la support gareeyo midna hadda dadasaan laha dalda hadda Wajeer West tagta kuwa ku dhaha Axmed Qolosh ma MP tasra oo ma aqoonsan isku leeyahay marka asaga you cannot control fiidaad ma celin kartaa ana ma aqoonsan kaas ana MP ma ahay ku leeyahay marka laakiin aqoonsiga waxa ka weyn galabta baarlamaanka jira صح ana baarlamaanka ma socdo
soo maqlay qofku aqoonsiga baarlamaanka ma galay qofkii marka qofka dad aqoonsaneen hataa shaqada yaa wada yaa wada oo baarlamaanka ku jiro maxaa yeelay Soomaaliya waa ogtahay dee fadhi ku dirarkeena iska badan sax marka hadaas ada xafiiska tagtay nin ugu tagtay وشاك ضدك إنك أصلا وجرك رزق وجرك وكذا. أوكي صعب شو أرنت كلام مكان كويديا لحظين حلبان وادسوي معدين إذا كنت إمسين سو سعودان واتاجرتين جافنر كعصب تبدأ الرجال راح يسويدين يعني محاكيني إن كم يدودان أرنتان إن جافنر عصب لورد أريا مدن الشخصية دودتين بس دنتي إن كان دنتي إن قصبت إن لحظين سوي معدن البروسيس كأتاجرتان محاكينا داني إنه waxaa keenay warka suuqa loo wada wajeera wareersan leeyahay iyo wajeer wareera ka jira in aan cadeyna madaxda iyo wajeer hadaan ahnay maxay yeelay dadka shaqo loo baahan yahay isbitaalada iyo daawo looga baahan yahay abaar baa jirta biyo loo baahan yahay ma aragtay adeeg dawladda loo baahan yahay waxa marka aan ku qasbanahay in hadba nin wax xafiis ku jiro annagana aan gacan siina sifa ay shaqadu u socoto marka dan shakhsi oo anaga ka wadan karnaa malaha dantayda shakhsi maxaan u arkaa dantayda shakhsi waxaan u arkaa shalay hadda aan ka imaado صح mashruuco ama steamer ha ahaadeen ama guri dhiisi ha ahaada ama xafiis dhiisi ha ahaada ama mashiin meesha hadda aan geeyna ha ahaada mashruuco dawlad ka imaadayaan soo furnay shaqadeeda u qaxan anaga dantayda shakhsi waxa waaye mashruucadaas oo iyaga soo hadda waxa la dilay qof la dilay anigu waxaan ahay nin oo baarlamaanka sare ka shaqeeyo dawlad hoose oo intay ma aragtay gaari saliid ku shubto dawladii odayaalkii iyo dadkii ma aragtay dadka laga dilay ama dadkii inay soo qaxayeen biig u geysa adeeg noocan baan rabnaa dantayna shakhsi anaga waata marka laakiin waxaan diidanahay in meesha wareer ka jiro oo reer habel la dhaha in aan istusno waliba anaga hadda reer wajeer waxaan Soomaalida kale ugu doonayo ma aragtay in la fikir la rabo arrintan qabiil kuma galin laba qoys oo Soomaali ah oo dhalatay governor iyo deputy ka ahayd wajeer annaga xildhibaaninta meeshan u badan oo dhanka aan ka imaan صح laakiin waxaan aragnay waxaan si sharciyan ah county assembly iyo senate ku baas mareeyeen sidii sharciga ahayd inaan u garab u noqon inay noqoto marka annaga dantayna waa taa soo xalaal u sheeg laakiin hadda mar dambe isku noqoto waxa leedahay hadii oo danti aad asma aragtay aska hoos maraysa de ushawa unti hay asagana waa meesha laga saaray nidaam inay noqoto waaye oo Kenya iska hirgala nidaam adeeg oo aniga qoyskaygan ku tirsanay aniga saana ku tirsana aan adeeg isku dhumin waa inay noqoto soo marka waxa leedahay wax dan shakhsi aad wadataan ma laha oo adeegida shacabka anaga kala duwanba dan shakhsi waxaan isku duunayaan ku sheegay anaga isku siyaasad صح qaar xisbiga ma aragtay kala xisbiyana صح nationally qaar ma aragtay qoysas oo tartamo hoosan ka imaadnay soo maqlay si fiican ma aragtay labada nimo hadda governaga iyo kan dambe oo deputy mise uu ahayo hadda governornimada loo dhaaray governaga hore iyo governaga dambe laba constituency laba cid ay kala imaadeen soo dan shakhsi oo intaynaas nusuka in keeni karta oo meesha noo wada xiriir karta ma danta waxay noqon kartaa dan guud okay waan ogaan doonaa markii la gaaro 2022 danta guud inay noqon doonto mid dan reer wajara mis dan siyaasadeed waan ogaan doonaa laakiin mashruuc hadii si wadno tan aan taas inaas hadalka in la baxsata ma 2022 tan isku maxir ma ahna inaan weerar dhisi doono runtii waa in laga sheego ma waa inaas kasbado 2022 alignment soo baxay intayna isla jirtay inaan governor isla dhisi doono ma maleynayo hadaa ay noqotona waa dhici kartaa laakiin intayna wixii jidkoon isla kay mariyo iska ma aragto wax adeeg noqon doono dhankoona in loo bato waa dhici laakiin tan wax 2022 ku shaqo lama waa process dhacay processki in si sharciyan loo xushmeeyaas okay halkaas aan ku xireyna arimahaasi wajeer aan ku noqono meesha laga soo doortay wajeer west axadii waxaad joogteen xadaado oo laga dhigay sub county marka waxaan rabaa inaan si eegno hadaleyn badan ayaa baraha bulshada socotay xadaado sub county in la sameeyo dad waxay leeyihiin Axmed Quraash kama soo shaqeeynin xildhibaankii hore ka horeeyay ayaa barnaamijkan ka soo shaqeeyay oo in xadaado sub county laga dhigo marka mashruuc xadaado sub county yaa ka dambeeyay yaa ka shaqeeyay ma adiga ka shaqeysay mise ninka walaalka ka horeeyay ayaa ka shaqeeyay baradaad noo sheegto iyo sidii xadaado lagu helay sub county baradaad noo sheegto horta waa in mid loo fahmaa xadaado sub county waxay ka soo bilaabatay sub location
sub location ay soo martay, location ay soo martay, division ay soo martay, hadda sub district ay soo martay, hadda waa district ama sub county. intaas inta xildhibaan ama inta may soo martay nin walba wax baa isku lahay. صح nin walba waxba kula waxba ku lahay. adeegan mihirgaliyaa muhiim ah. yaa ka shaqeeyay yaa keenay iyo hadda la yidhaha dadka nin walba wuxuu ka qabto way ogyihiin shacabka. adi hadda inaan aragti ma ogi aniga social media ama Facebook sooma update garaynin since my by election. waxaan usoo update garayn lahayahay amaba aan inaan go'aansaday inaan iska dhaaf aan ugu talagalay dadka social media wax ku qoro iyo dadka adeeg u baahan waa kala yihiin runtii. inkasta oo dad social media wax ku qoro oo adeeg u baahanna ay jirto, Soomaalida waxay abuse garaysay processka social media. ana saad ogtahay markii aan candidate ka ahay marka hore inaan Jubilee ku istaagaan rabay. Jubilee inaan ku istaaga haddaan rabay waxaan u imaanay markii aan candidate ah Nairobi aan imaanay ninkan hadda CES environment maxaan file loo aqaanay anaga iyo maartay professionals Wajeer West ka imaadaan. Deputy President William Ruto oo tagnay waxyaabaan u geysanay صح oo sifa aan xisbiga ku soo galnay intaan hanoola sameeyaa waqtiga musharaxeed musharaxa aan nahay. waxyaalaha hanoola sameeya aan dhahnay waxa ka mid ahayd Hadhaadho sub county. sidii runtii ah taariikh 26 bisha 6 2017 ala soo gaazet gareeyay Hadhaadho sub county. I think about there this 2017 June or July meelahaas la soo gaazet gareeyay. marka ayada ahayd nin walba wuxuu ku lahaay Cabdiqaadir walaalkii oo isoo dhisay markii ma aragtay aan candidate ka hortayna MP ahay anna asaga aan soo dhisay markuu MP ga hayo ma aragtay si nidaam ah oo tala ah aniga naftinkay inta liigu reebay aan asaga aan ka haray aan soo dhisay. asagana markuu nidaamka asaga shalay lagu soo qaaday oo haddana lagu reebay oo inta ku haray aniga igu soo dhisay asaga Jubilee ku haray aniga waa la isku ka imaaday oo nin marka ayada ahayd governor Wajeer ka ahay ali yiri hadda kale xisbi gashiin sidaan iyo odayaal Wajeer laga soo diray saan baa la isku imaaday waxba hala wala anigoo arrimo ay taxan yihiin oo arrintan sub county iyo waxyaalo ku heshiin ayaa haddana inaan ODM aada anigoon ka qurneen wallahi sida ma aragtay odayaalkii danta anagoo fiirinayna soo ma aragtay aan ku noqon haas iska hata asagana meeshii marka aan tagnay oo waxyaalaha aan codsanayna sub county uu ahay asagana sitting MP uu yahay wuxuu ku haray Jubilee. sida runtii gazetmentiga iyo shaqada badanaas ka qabtay in la soo gazet garay. anigana meeshii asaga ugu tagaan hore ugu wada soo maqlaysa si fiican. ninka MP ga ah waqti uu MP ahana kii soo galana waxa fiican wixiisan oo wanaagsan oo ninka hortiis sameeyay inuu asagana dhamaashatay oo shaqo qabtay marka asaga shaqo ka qabtay anna shaqo weyn aan ka qabtay daa aragta xafiiska ka dhisan Hadhaadho hadda meel uu ka dhisan yahay oo isla jirta sub counties ka taa kuwii hore oo waqtigii Kibaki la bilaabay meel uu xafiiskaas ka dhisan yahay mala guriga DC-ga loo dhisay hadda aragta oo Hadhaadho meel uu ka dhisan yahay mala ka soo arka soo maqlay sub county halkan cusub oo la furay kuwa waxa la sheegay oo waxa kamid ah Burra East walaalkay Cabdikariim oo faafi laga soo doortay oo UN dhul ay ka guurtay oo refugeeska awal laga saacideynay hadda loo wareejay oo dhul idalo ACC qaba aniga waxaas ku sheegay laakiin nin MP ah oo asaga isqaaday oo ma aragtay headquarter sub county ka saas ka dhigay inuu jiro lama laakiin ma ahna sheeko ana tan sameeyay waxa waaye wax baas u imaaday qabyo ah waa dhameyshtiri wax baas bilaabay inaad ku kala gaashaa imaada laga yaabo isqablada dhameyshtiri marka wax oo ilmo oo ma aragtay dhalinyaro oo kulli wax shaqo u weyn ay leeyihiin ay jireen oo siyaasiga inay isu foodiyaan ee magaalada ku joog ayaa waxaas suuqa geliya laakiin waxa Cabdiqaadir oo ogay wax shaqo asaga ka qabtay waxaan ana ka dhameyshtiriin oo ogay Hadhaadho oo ogay okay marka sub county-gan la hagaajiyay oo hadda la geeyay DCC oo xafladda la qabtay axada oo xitaa joogay regional commissioner-ga mas'uuliyiinta inta aad joogteen maxay ka bedeli doontaa magaalada Hadhaadho balad noo sheegtay waxay ka faa'iido doonaan dadka reer Hadhaadho danayna horta dawladda Kenya markii zamaani district la sameeyay district wuxuu la imaada jiray arrimo badan shaqaalaha dawladda
wasaaradaha oo dhan wax baad u leeyahay jiray hadda waxa ayaga waa inaad raadis hadda aan usoo qaato Wajeer West for example district hore hadda dhawaan inta la bilaabay Wajeer County birth certificates waxa laga goynayay meel la yiraahdo Wajeer East magaalada Wajeer iyo Habasweyn marka inta kale oo sub county meel uu joogay mala meesha ku xigtay ongeey waxa waaye Grifto marka meeshii hadii ninkii registraag ahay oo ID goynay uu taga sax hadii ninkii birth certificate goynay astaga hadii isbitaalka intii la weyneeyay meel la isku qala oo operation iyo maaragtay oo daawadii lagu bixiyo uu sameystay shaqoodin iyo waxyaalo badan oo meel kale la isku qaadaya meesha ka soconay so waxa aad siyaadinahay waxa waaye ma ahna meesha district ay noqoto dhiisinimaas wax u keenaya malaha laakiin shaqa soo dhawaanay waxa soo dhawaana caafimaadkii meesha laga doonayay hadii hadda maaragtay qof Wajeer loo qaadayo qalitaan yar loo qaadayo gabar ay foolata ama arrin kale aad jirta ama xanuun yar oo kale oo dhakhtar daawooyin kale jira hadda dhow waxa la geeyay dhakhtar MOH soo maqlis si fiican marka arrimahaas ay keenaysaa adeeg inuu u soo dhawaado dadka intaas aan maaragtay waxa loo hagaajinayaa karti aad badan maastay mashruuc gabagabadii aan sii saqeynaa waxaan rabaa inaan soo kale aan ku weydiiyo doorashadii mar labaad aad ku noqotay baa election ayaa dhacay marka hadda waxaan filayaa in waqti lagu dhaariyay 2 sano iyo hal bil inaad xafiis ku jirto marka waxyaabaha is leedahay 2 sano inaad qabatay bal hadaad noo sheegto iyo waxyaabaha ku qorshaysan doorashada guudna ay soo dhowdahay dadka aad bay isu diyaarinayaan doorashada inay ka qayb qaataan marka maxaa ku qabsoomay 2 sano iyo waxyaabaha is leedahay waad qaban doontaa inta ka harta daansiga doorashada guud ee 2022 والله horta waxyaalo badan aan qabsoomeen aniga aan maaragtay aan ogsoonahay dadka reer Wajeer Western inay og yihiin oo maaragtay ay wacdahay waan u maleynayaa waxa kamid ah tacliinta inaan wax badan ka bedelay sax daas fiirisa macallimiinta soo dhameeyeen college teaching Wajeer County markii laba meel loo dhiga meesho constituency ay ka yimaadeen maxay yiraahdaa hadda dibka macallin laanta ka jirta waa ogtahay Northeastern marka macallimiinta Soomaalida ah oo Wajeer ka imaaday oo soo dhameeyeen kooska macallinimada oo hadda shaqada bilaabeen markii intii Wajeer ka imaaday dambiisho isku soo muskeed ka badan meeshii ay ka imaadeen sax waxaana keentay inaan anigu dadkii aan ku baraarujiyay inay kooskaas ay aadaan in lacagta fiista oo caruurta maartay dhalinyarada sameynaysa aan ka bixino on anaga trainingkii iyo macallinimadii iyo baahidii aan culays saarno waxa kamid ah iskuulada aniga marka aan maartay meesha la soo dooranay hal iskuul oo girls school la jiray hadda waxaan furay iskuul waaso girls la dhaho oo hada masaajida ku yaala oo gabdhaha ay leeyahay awal honorable qaliif kala xajiri sax mid kale oo Wajeer magaalada ku yeela oo dadka caruurta boardingka aan la geyn karin oo tabarida oo maartay inay dhayga u noqdaan raba oo wiilal iyo gabdho isku jiro asagana waan bilaabay waan geey macallimiintii iyo maartay kala baazariga inta aan dadaali karam inta sharci iyo ogolay inaan baazari gari lacagta aan galay anigana shakhsi uma qaybi صح qoysaska iyo dadka odayaalka sida iskaga warqabaan iyo culimo diinka aan u kala qabantaan aan dhiiba waxaan dhahay idinka dadka in kugu daran keena dadkii ayaga soo identify gareeyaan kan laakiin dad aan qortay oo ama aniga ay soo dhisan aan leeyahay ama saaxiibo way aan leeyahay ma geeyo dad marka sida loo keenay geeyo waxa kale oo maaragtay aan waa dhanka tacliinta taas dhanka security-ga dib idil baa ka jiray Wajeer West markii aan imaanay oo waliba reer Wajeer dhaxdeeda hadda anaga iyo siilo daaq isku haysan laakiin reer Wajeer dhaxdeeda ka jiray waxaan u maleynaa wax dil dambe oo ka imaaday ma jirta nabada ka dhaxdeeda arrimo badan oo ama biilah oo maaragtay mashiimo cusub meel aan ka qodnay wara meel aan ka qodnay oo maaragtay meel booco la dhahay kamid tahay barmiil meel la dhahay kamid tahay maaragtay bilaq meel la dhahay kamid tahay I cannot count ajirta oo biyaha aan ka shaqeynay صح hadda sub county-ga waa operationalize gareynay waa furnay divisions oo imaaday haya meeshan ka tangaasiya ayagana waa furhayna waa shaqada iyo service-ka dadka loo soo dhaweynaa صح September-ka meelo badan oo ma aragtay as
aniga meel wajeer bi looga jiiday ama garif ama waxaan ma ogay meel hadda steamer qabtay oo ayada stationkeeda qabtay ma lahayn hadda dhow aan shalay tagni station baan ka furnay haddaan tan 6 kalan furahayna oo la soo advertise garay 6 degmo oo cusub ah steamer ay lahayd college oo life oo maartay la dhahaa Grift Pastoral Training aku yeelay Grif waan bedelnay waxaan ka dhignay Livestock Training Institute halkaas college wuxuu sameeyaa waa gobolka dhan college ku yaalo wax xoolaha ku xisaabsan dhaqan xanaanada iyo maartay daaweynta iyo waxaan xoolaha ku xisaabsan laga barto shaqo badan aan ka qabanay sida runtii ah dhismo badan aan u sameeynay dad badan baan ka qornay macallimiin kale waxaan ka qornay 34 macallin oo arrimaha xoolaha iyo dhaqaalaha xoolaha iyo waxaan baraysa dadka iyo daawada hadda gawaari baan u soo gadnay waxaan wadnaa hadda Wajeer County hadii xoolaha cudur uu ka dhaca in laga daaweeyo college-kaas oo dhaqtariinta joogan college-kaas ay ka caanay gawaari qaataan oo haday tarbajo u kacaan cudurka tarbajo ka dilaa xoolaha ay soo talaalaan marka waxaan ka bilawnay Grif waa maartay shaqo alxamdulillah noo hirgashay marka arrimo badan wallahi oo maartay aan la soo koobi karin dad fiirisa dhanka security-ga police stations cusub aan gazette gareynay oo u soo dhaweynaysa services ama dhanka markii oo dhibaatada security-ga nidaamka soo dhaweynaysa ayaan meesha ka bilaabay waana sheegtay oo kaliya aniga hadda waqti oo by election-ka aan ka soo baxay waxaan joogaa 2 sano iyo bar siyaasadda horta ninkii banaanka ka jooga waxaad u malaynahay bed of roses ninkii ku jirona waxay tahay asbuu yahay mar waxa ku gali war waxaan qaylina oo dhan yaa markoo baarlamaanka keen hawl keen laakiin haasi ahaatee waqti waxa jirta siyaasadda ay in la qabto ay xaq tahay iyo waqti in la shaqeeyo ay xaq tahay صح أنا ما آمن سنة حدا إلا بيش أفراد سنة كل صوت دافعي وحي وحشة وحي أزديارني نادح واقم هاد نقول بحقه ليه إنه قلت لكن أنا شخصيا وحان ربا صفاء عن بريلي دهن أحمد قروش مركو إمبيجا هاي محاز قبت وقتي يرون هايست إنا بدي شقة كودا ما يست مركز كبعد أن ضدك كون نقضون بيش أفراد بيش ستحات سنة كان صوص مركي لجارة عنده روحان ويقب صمين ما أردت وحنا ويدميهين شقادنا وان أباهنا أنا يقول لسان أيان ده قلدات كده في رمال هبسوينا واتقنا ذو وحن كجيده هاي رمنا هبسوينا ستمر ونجين هنا إلى الله بقول أنت صدق ما أدحذ كجرت صح مركز إلى الله بقول أزجي ستمر كس هبسوينا كجيد أردنك وجار ويست وجار ساوث بلا هاي إمبيجا وجار ساوث أسكا كاشن هاي مركز جيدة وحس فائدينيسا ماشي كلا أس قدام بيسين ربط ما هن مقام ميلو لحظة صح وهلا هاي ستين مركز ستين مركز نال جوري اللي قشطول الشدمة ينو مدا ما نهار إلى سوحد مال هذا ستين مركز أنجليني مركز جوان هاي ورن وآخر ناس ده مركز هذا ستين مركز قلنا ها أنا هذا جو عم بقى وعباي واسطة قفا يبسني هاي جبرها برف هجاجنا هاي سو المها كي يبسني هاي سو المها فيس وبحسن هاي سو مقلس isbitaalka daawadiisa fridge-ki ay ku celinaysa marka ma ahna nalka la shidanayo kaliya inaad steamer-kaas ma aragta ninka welding-ka sameeyo wax guba steamer-ka isticmaalay garage-ka steamer-ka isticmaalay soo arrimo badan ka furmaya marka steamer oo kala asmeelta marka ninkii garanaya for example habasweyne ila 100 meeqa meel isu jiraan meeqa degma dhaxda ku jirto meeqa ka faa'iidi karta waa ogaanaya culayska ay leedahay ninkii siyaasad rabana hadee habala sameeyay habala ka horeeyay ana saan yeelay aniga ma arag arka malaba kana isku leeyahay laakiin dadka way ka ogsan yihiin dadka in kasta oo la doqonaysto midaa shalay dhahay dadka waxa sir waa xoolo dadkii lahaay ay magaalada joogaan hada waxa sir dadkii magaalada dad afahmo weys dadka tulooyinka iyo meelahan degan horumaran u keenay ma fahmaan reer habali wax baa loo soo dhisa laakiin ana waxaan aaminsanahay reer habalkana idoo la dhisay asku dhismi kartaa war waxan baan qabtay ma arto waxan hatta hadaas adigu dhismayna laakiin inaas wax qabato oo wax ka tagto waa tii lagu soo doortay inaas as dhaqan cibaada ahaan u sameeyso oo adiga dadkii ku suway ay shaqada ugu saaxanin ama doorasho ka cabsata adiga ilaahay adoo raali gelinaya ummadda ku soo dooratin wax la qabanayo shaqada qabato ma garti aad badan ma haystaa mashruuc waxa la socdaa in shirka aad gal rabto marka waxaan ku siinayaa wax ka yar hal daqiiqo inaad baaq u dirto dadweynaha Wajeer dadka Waqooyi Bari
iyo dadka deegaanka number 1 horta dadka waqooyi bari waxaan leeyahay war Kenya way maarta arrin badan baa ka bedelmahaya annaga 290 constituency la soo doorta wadanka Soomaali ama waqooyi bari waxaan ku leenahay 18 marka 298 maxay ka noqon karaan 18 kii oo si qaybsan oo qabiil u si qaybsan marka dadka waqooyi bari waxaan ku leeyahay dantiina ku jirto waa inaad isu imaadaan marba nin baa la soo dooranaa nima hadda hor igu yiri oday ah doorashada ninka dadka sameeya laba shay kale waxbaad u sameynaa marka u horeysa nin baas dhisi waxaad leedahay oo Cabdinuur aan dhisa hadda Cabdinuur dhisa aan dhisa waxaan u qabanaa intuu isan walax aad iska dhicin fikrada iska dhisa kiyaas ka wayne marka kaas safarta dambe waxaad leedahay kana rida adiga ma shaqo kuma ah kan una soo dhacasle soo maqlis kii askii u soo rida hadana kii hore ka sii xumaana marka cycle case wadi marka dadka waqooyi bare siyaasadda ma hoosama dhaxgalin oo yaala doornay laakiin hal la soo imaado oo wadanka siyaasadda guudka maxay hadda macallimiin ma haysan meesha hadda aan shalay soo furino hadado ninka Kenyaanka kala oo meeshan ka imaaday banaankan haduu saxda qaf taabanaya mala macallimiinta joogteen waxay u soo fiigtay al-shabaab dadka Soomaaliyeed marka tacliinteeni oo dhalinyaradeenni waa dhimatay dhaqankii guud waa dhintay marka nimiya waxa la soo imaado oo arintan hore ha loo socdo oo danta laga raadiyo waa reer waqooyi bare reer wajeer hana la wada noolaado oo ma aratay isjiidkan ee qabiiladan iyo dagaalka wixii meelihi hadda ku dambeeyaan hal iska dhaafo reer wajeer ma aratay sidii waqooyi bare leeyahay hal midooba ma aratay hal soo qaboojiye meeshan siyaasad hadda koor aniga ninkii governorga hore oo wajeer 2013 zaid u dhisay oo yani aan saxanayno meel kasta maraya asna oday ah oo hadana zaid isku dhow yihiin asii maadey waxa dhaynaa oo dhageysa siyaasad hadaan baad loo dhisayn hanuna isku jijibin zaid isku hiro waa sheekadu sheegay mandago inuu siyaasaddu ay lags gari wadnaha galin marka siyaasadda marba waa imaade way bixi way tagi laakiin idinka ma arti zaid isku dheeraanayna sabab laan Rawajeer West waa ka xunahay arinta subaxan shalay dhacday kulli anigana wax aan reebanaya iyo wax in ka qaban kara oo dawladda iyo cid qoyska ma arti waxaan la haray malaha ayagana waa dadkii odayaalkii chief of subaxan waa la wada hadlay waxaan ka codsanayaa arintaas arin in annagana aan wax sameeyn inaan la sameeyin oo qafaan la diriya qafaan soo dilmay Soomaalida waxay tiraahdaa dagaal wiil ku dhintay ma wiil kuma dhasho haddaan la kala roonaan roob ma daan wali صح marka in la isku daydo oo xumaan la iskaga daydo waa laga fiican yahay waxaan aan codsanayaa reer Wajeer West in ma arto wixii shalay imaada haddana abaara jirta inaan daaq doono oo ma aragtay intee xoolihi ay ku bixi karaan laga fikiraa fiican inkasta oo yani neef wuxuu cunay in naf balaadin aan isku bedeli karin laakiin qof walba sababtaas ilaahay keenay un bas u dhinta in marka la soo dhawaado oo ma aragtay dib la keenay mid kale waxaan farayaa media houses ka inta amal ama dadka waxa jira dad social media social media dadka qaar oo social media MP-yaalka ama gobanayaalka ku caayaan hadda message-yaalka ay ama MP-ga u soo direen ama governor u soo direen as MP-ga inaas dira qof asaga gacan siinay oo u diro u dhaabal ninkan wuxuu igu haysta wuxuu iga rabay fiiri waa la isku xibaba kunti ayay qafa wax buu ku soo doonana wixii adima ba haysid runtii MP 99% waxa ay shacabka noo istanka haya ay ka raadiyaan ma hayaan waxa markas ka weeye inuu social media ku caayo isku diya marka in unti ay ahayd aan loo qaadin wixii dadka kale kay especially wixii qoyska dhaxdiisa waxba ma nin walba intuu taagsan karo taagsana laakiin wixii laba qoys iyo laba gees dhaxdooda oo ma aragtay dad ilaa qoys isu keeni karta oo ana iska faan isu keeni karta laga fiiriyo arrimaha county-yaalka waxaan leenahay walaalayaal waxaan hadda si doonta u gurato waa laga dhimanaya
ilaahayna wax dadka kula xisaabtamayo dadka waxay nooliyeen ana hadda waxay ii bixiyaan kuwa oo qaar markaan ku tuso message-yaalka ii soo qoreen hadda daan ku tuso inta screen-ka soo saartay liyaab xabsada aniga saas online kan ka akhri online ka saartay aniga saas ilaahay ogahay sidaan MP u noqday kun shilin oo CDF leedahay intaaban laakiin magacii in lagu bixiyo iska macalin kartid oo dad meel u fadhiyo oo qayrayo oo san u fadhiyo laakiin su'aasha muhiimka waxa waaye war waxaan as ilaahay nuu aamini oo dadweynaha ay leeyihiin aan shaqo ku qabana dadka uma wada qaybin karna laakiin biyaha shalay aan hadho ka dureyni pipe-na qabaan dadkay wada gaarayaan shalay arrimaha yani oo hadda xanuunka ugu hay wax kamid ah meel inay jiraan Wajeer West degmo iskuul qabto oo biyo qabin inay jiraan meel biyo qabto oo 2 kiiloomitir ay gabdhaha garjan ka soo jiidayaan waxyaalo qaar ay dawladda hoose leedahay hadda anaga nagu soo baxsaday صح biyaha anaga nagu soo baxsanayaan isbitaalada dhibaa ka jira marka county governments waxaan leeyahay anwana inaan u mahad celiyo hadda halka ka sheegay runtii governor Mandera على قرن شقه على الربع شقه وين وهاي marka aan impiyalka aan nahnay meel iskugu imaan kuwa Mandera waa noo fanaan soo maqlaysa aniga Mandera hal mar maan oo dagaal ka jiriyaan tagay oo meel maslaxa u tagay laakiin waa noo fanaan sida runtii marka in waxa roon governorayaalka dadkiina ay kugu fanaan war anagu governorayna isbitaalkayna daawo kama dhamaata oxygen kama dhamaata biyo waa helnaa jidadkayna waa la mari karaa soo maqlaysa dadka kala oo impiyalka ay dhahan annaga MP-gayna ilmaha baasariga waa nooga bixiyaa marka security challenges ay imaadaan ee dhibaas imaado waa maartay waa garab taagan yahay waxyaalaha ma aragtay samaanta oo wax qabadka aan ku tartama aday meeqad soo qaadatay aday meeqas iyo maanta karbaashisa waaga madaxda Northeastern inaan iswada raacsanahay ma aniga weligay qof madax ah oo Northeastern waliba MP waxaan ma caynin waxba kama sheegin madaxda Northeastern nin walba dantiisa loo soo doortay haddaas aragta qofka kale inaas la heshiinayn ada asaga kuma xirnid صح gaarka u shaqeeyay dawladdu waa uga socdo ada xaqaas bakeerigaada ka darsan galaaskaada ku kala xaqaas ka darsana markaan weelka aswada weynankiisa ku xirantahay soo ada gaarka u shaqeeyay garta aad badan maastay mashmuuc waxaan filayaa maalinkan inaad soo laaban doonto oo aan arrin badan si falanqeyn doono halkaasaan jecel inaan ku soo xiro wareysigeena oo Martin waa Axmed Qoloosh mashmuuc MP-ga Wajeer West barnaamijka halkan waxaa si toos ah in la socodsiinayo aniga waa Cabdinuur Cali Alxaaji insha Allah intaan dib hoodan ku doono barnaamijkeena xiga waxaan kiitayna sidaas iyo nabadgelyo assalamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh